nabaday daawadayaal waa mar kale buugga ee Promised Land ee uu qoray madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. buuggan aynu ka soo qaadanaynay qaybihii uu Obama kaga hadlayay qaabkii uu u dhacay dilkii Usaama bin Laden. qaybtii tan ka horeysay waxaanu ku soo bandhignay dareenkii ay madaxweyne Obama iyo gacanyaalayaashiisa amniga iyo militarigu ku qaabileen habeenkii la fulinayay howlgalkii lagu dilay Usaama bin Laden. waxaanu soo aragnay iyada oo qol ka mid ah guriga cad ay dhammaan mas'uuliyiintan isugu yimaadeen iyada oo muraayad TV oo gidaarka loogu dhajiyay kala socda waxa ka socda gudaha dalka Pakistan gaar ahaan magaalada Abbottabad ee uu howlgalku ka dhacay. Barack Obama oo qolkan soo galay iyo qaabkii lagu qaabilay ayaynu halkan ka sii wadaynaa. waxa uu hor fadhiyay kombiyuutarkiisa oo uu miiska saartay. waxa uu isku dayay inuu iga kaco kursiga. fadhi ayaan ku yiri anigoo garabka gacanta ka saaraya meelna ka raadsanaya kursigii dhinac yaallay. web waxa uu microphone iyo Leon ku wargeliyay in aan bedelay goobtii ay marka hore ahayd inaan ka daawado dhacdadan. markiiba kooxda intii kale oo dhan ayaa qolkiis ka soo buuxisay. waxay ahayd markii ugu horeysay intii aan madaxweynaha ahaa ee aan daawado howlgal military oo toos markaas u socda. muddo hal daqiiqo ah markii aanu daawanaynay sawirro aad ruuxaan moodo oo muraayadda fiidiyoga hadba dhan u soconayay ayaa mid ka mid ah labadii diyaaradood ee nooca Black Hawk ahaa ay gelgelantay iyadoo hoos u hoobanaysa. intii aanan fahmin waxa dhacay ayaa microphone nagu wargeliyay in diyaaraddaasi ay lumisay awooddii kor u kaca kadibna ay jiidhay dhinac ka mid ah darbiyadii kaamboolka Abbottabad. markiiba cabsi ayaa jidhkayga sida korontada u dhex qaaday. argagax ayaa sida gariiratada madaxayga ululay. diyaarad ayaa burburtay. waxaan arkayay ciidamadii siilis ee saarnaa diyaaradda oo isku taxalluujinaya inay ka baxaan ka hor inta aanu mashiinka diyaaradda dabqabsan. dadkii deganaa xaafadda kaamboolka ayaa guryahooda ka soo baxay si ay u arkaan waxa dhacay. militariga Pakistanna waxa uu soo orday goobtii ay wax ka dhaceen. codka microphone ayaa iga kala gooyay riyo foolxun oo aan soo jeed ku dhex mashaaxayay. xaaladdu way fiicnaanaysaa ayaa uu yidhi. howlyaraanta hadalkiisa waxaad moodaa inuu ka warramayo gaadhi baangad ku dhuftay gaadhi gacanka badeecadda lagu gurto marka suuqa laga adeeganayo. wuxuu intaas ku sii daray duuliyaha diyaaradda wadaa waa ka ugu fiican ee aynu haysanno. diyaaradda si badqab ah ayaa u soo dejin doonaa. runtiina sidaas uu sheegay microphone ayaa ay u dhacday xaaladdu. waxa aan mar dambe ogaaday in diyaaradda ay qabsatay mawjad ka dhalatay heerkulka oo ka sarreeyey sidii lagu talagalay iyo qulqulka hawadii ku xayirnayd derbiyada dhaadheer ee dhismaha dhexdooda. duuliyaha ayaa si ku talagal ah diyaaradda qaybteeda dambe ugu qabtay derbiga si uu uga hortago in ay dhacdo jug khatar keentaa. laakiin aniga waxa keliya ee aan arkayay wuxuu ahaa walxo midaba casuusa leh oo si degdeg ah boosas u kala qaadanayay kadibna gelayay guriga. muddo 20 daqiiqo oo xanuun badan ah xataa microphone aragti yar ayaa uu ka haystay waxa dhacaya. ama laga yaabaa in uu nooga aamusnaa mashquulka tafaasiisha baaritaanada ay kooxdiisu ka waday qol kasta oo aqalka ka mid ah. waxaa murugo aanan filaynahayd in aanu mar keliya ku war helnay codadka microphone iyo Leon oo bedelay erayadii afgarashada ee aanu sugaynay inay odhan doonaan. kadib biladhan oo aanu qorshayaal soo dhisaynay iyo sannado aanu xog sirdoon ururinaynay waxay ku hadleen erayo afgarasho oo aanan isla ogeyn. Geronimo ID, Geronimo Ikaya oo macnahooda ahaa cadowga howlgalka ayaa lagu dilay ayaa ka mid ahaa erayada cusub ee afgarashada u isticmaalayeen. magaca afgarasho ee uu howlgalkan Usaama bin Laden u bixiyay wuxuu ahaa Geronimo, ninkii mas'uulka ka ahaa weerarada argagixiso ee ugu xumaa taariikhda Mareykanka. ninkii sida tooska ah u gumaaday kumanaan qof oo dunida geliyay waqtigii ugu qaskaya xiisadaha badnaa taariikhda adduunka ayaa maanta ay cadaaladii hor keeneen unu ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Mareykanku. neeftuurka iyo naqas iska gurka dadka goobta igula daawanayay dhacdadan ayaa laga wada maqlayay qolka oo dhan. indhahaygu weli waxa ay ku sii dheganaayeen muraayadii fiidiyoga ee aanu kala soconay dhacdadan. waynu helnay ayaan si dabacsan u yidhi. muddo 20 daqiiqo ah oo dambe ayaanu qof kaliya kursigiisii ka nuuxsan markii ciidamada SEAL ay dhamaysteen howshooda oo ay ka mid ahayd inay bushqadeeyaan meydka bin Laden meel aamin ahna geeyaan 3 xaas iyo 9 carruur ah ee goobta joogay. kadibna ay waraysi kula yeeshaan koona ka mid ah kaamboolka inay ururiyaan kombiyuutarradii faylashii iyo qalabkii kale ay filayeen inay qiimo sirdoon yeelan karaan. diyaaraddii dhaawacu soo gaadhayna ay ku xidhaan walxo qarxa si loo burburiyo. diyaaraddaas waxaa ciidanka loogu soo bedelay diyaarad nooca samata bixinta ee Chinook ah. markii hawshii dhammaatay ee ay diyaaraddii kaceen ayaa Joe inta uu gacanta garabka iga saaray oo uu tuujiyey waxa uu igu yidhi hambaliyo madaxweyne. inta aan istaagay ayaan madaxa lulay. Dennis ayaa tontoomo gacanta igu dhuftay. waxaan gacan qaaday intii kale ee kooxda. laakiin maadaama ay labada diyaaradood weli hawada Pakistan ku jiraan xaalku waa uu sii taagnaa. waxay ahayd ilaa 6 fiidnimo markii diyaaradihii si nabadgelyo ah ku fadhiisteen Jalalabad. markaas oo anigu
ugu dambayntii dareemay in dareenkii kacsanaa waxoogaa hoos iga degay. muddo yar kadib ayaa microphone uu kulankii maqal iyo muuqaalka ahaa noogu faahfaahiyey sida uu u eeg yahay meydka qofka bini'aadin ahaanta loo dilay. markii uu isagu dhinac kasta ka eegayna rumaystay inuu bini'aadin qudhiisi yahay. barnaamijka kombiyuutarka ee CIA ku aqoonsato wejiyada dadka ayaa isna dhaqso u caddayn doona cidda uu yahay ninkaasi. si intaas ka badan loo sii xaqiijiyo ayaa microphone nin ka tirsan kooxdiisa oo dherarkiisu yahay 1.8 mitir waxa uu hareer jiifiyey meydka loo malaynayay bini'aadin oo dherarkiisu yahay 1.93 mitir si uu hubiyo. Pil sidee ayay ku dhici kartaa adigoo waxaas oo qorshayaal ah dejiyey haddana inaanad raacin mitir lagu cabiro ayaan kula kaftamay. waxuu ahaa ereygii ugu horreeyey ee kaftan ahaan maalintaas oo dhan aanu idhi, laakiin qosolkii lagaga jawaabay muddo badan siima u socon. markiiba sawirro beydka bini'aadin ah oo la soo diyaariyey ayaa lagu wareejiyey dadkii miiska aan wada fadhinay. si kooban ayaan u jalleecay sawirradii. isagii ayaa u ahaa. inkastoo ay jireen caddaymo lagu garanayay inuu Usaama bini'aadin yahay meydkani, haddana Leon iyo microphone waxa ay sheegeen in aanan hubaal u qaadan karin ilaa ay soo baxda natiijada shaybaadh dhinaca dheecaanka hidda-sidayaasha DNA ah oo lagu sameeyey meydka. taasina waxa ay qaadan karaysay 2 maalmood oo kale. waxaanu ka doodnay suurtagalnimada inaannu dib u dhigno sheegidda dilka Usaama bini'aadin, laakiin waxaa markiiba shabakadaha internetka si aad ah ugu faafay warbixinaha sheegaya in mid ka mid ah diyaaradaha eega qumaatiga u kaca ay ku burburtay abaad. Mike Mullen ayaa telefoonka kala xiriiray taliyaha guud ee ciidamada qalab kasta ee dalka Pakistan, General Ashfaq Pervez Kayani. maadaama ay sheekada dhex martay ahayd mid xurmo badani ka muuqato, Kayani waxa uu codsaday inaan sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah u qiranno weerarka iyo bartilmaameedkiisa si aan uga caawinno sidii ay u xakamayn lahaayeen cadhada rayul caamka dalkiisa ee ka dhalan karta falkan. markii aan garowsannay in aanu noo furnayn jid aan warkan ku sii qarin karno 24 saacadood oo dambe, aniga iyo Ben ayaa u baxnay dabaqa sare. kadibna waxa aan Ben si dhaqsa ah ugu yeedhiyey fikirkayga waxyaabaha ay tahay inaan kaga hadlo khudbadda aan ummadda arrintan ugu sharaxayo goor dambe oo isla fiidnimadaas ah. dhowrkii saacadood ee xigay waaxda galbeed ee aqalka cad waxaa ka socday shaqo aad u xaami ah, halka ay diblomaasiyiintayaduna ka bilaabeen inay la xidhiidhaan dalalka shisheeye iyo kooxdeeda warisgaarsiinta si ay ugu diyaar garoobaan shirka jaraa'id ee aan qaban doono. waxaan anigu telefoonka kala hadlay George W. Bush iyo Bill Clinton, waxaana u sheegay warka dilka Usaama bini'aadin. waxa aan Bush u qiray in howlgalkani uu yahay dhammaystirka dadaal adag oo muddo dheer socday oo bilowday xilligii uu isagu madaxweynaha ahaa. inkastoo ay saacadda habeenbadh u ahayd dalalka ka tallowsan badweynta Atlantika, haddana waxaan sidoo oo kale la xidhiidhay David Cameron, ra'iisul wasaarihii Ingiriiska, si aan qiraal uga bixiyo taageeradii xoogganayd ee tan iyo bilowgii dagaalka Afghanistan uuna siinayay dalkan oo xulufadeeda ugu dhow ahay. waxa aan filayay in xiriirka telefoon ee ugu dhibta badani uu noqon doono la hadalka madaxweynaha Pakistan ee go'doonka ah Asif Ali Zardari, kaasoo ay hubaal tahay inuu dadkiisa kala kulmi doono dareen qallafsan oo la xidhiidha ku xadgudubka qarannimada Pakistan. si kastaba ha ahaatee, markii aan la hadlay waxa uu muujiyey bogaadin iyo taageero. wax kasta oo dhacayba warkaasi waxa uu ahaa war fiican ayaa uu igu yidhi. waxa uu ii muujiyey dareen run ah. waxa uu dib ii xasuusiyey sidii ay xagjirayaal la sheegay inay xidhiir la leeyihiin alqaacida u dileen xaaskiisii Banasiir Bhutto. dhinaca kalena maalintaas oo dhan ma aan arkin xaaskayga Michelle. goor hore oo maalinnimadii ah ayaan u sheegay waxa dhici doona. markaasaa halkii ay aqalka cad warwar la dhex fadhiyi lahayd iyadoo sugaysa warka inta ay labadeeda hablood ee Maaliya iyo Saasha kaga tagtay ayay casho u raacday saaxiibadeed. aniga oo markaas un dhammaystay gadhxiirashadii oo xidhanaya suulka ayaa ka soo gashay albaabka. dabadeedna ayaa igu tidhi. suulka ayaan kor u qaaday aniga oo dhoolla caddaynaya. kadib inta ay soo dhufatay ayay laabtay gelisay. waa arrin heer sare ah xabiibi, ayaa igu tidhi iyadoo intaas ku sii dartay. runta ii sheegoo maxaad dareemaysaa? imika waxaan dareemayaa keliya inaan nafisay, laakiin 2 saacadood kadib arrintan dib iga warayso ayaan ugu jawaabay. waxaan dib ugu noqday xafiiska oo aan la fadhiistay Ben oo khudbaddii qoraya si aan u siiyo fikradeedii ugu dambaysay ee dhammaystirka khudbadda. waxaan siiyey mawduucyo guud. waxaan doonayay inaan khudbaddeeda ku xuso xanuunkii ay muwaadiniinta oo dhammi wadaageen 11 Sebtembar iyo midnimadii aanu gacmaha isqabsannay maalmihii ka dambeeyey weerarkaas. waxaan doonayay inaan salaam sharaf siiyo dadkii howlgalkan ku lug lahaa iyo sidoo kale xubin kasta oo ka mid ah ciidamadeenna qalabka sida iyo laamaha sirdoonka, kuwaasoo si joogto ah u samaynayay nafhur badan oo ay annaga nagu badbaadinayaan. waxaan doonayay inaan mar kale ku celiyo in cidda aanu dagaalka kula jirna ay tahay alqaacida ee aanay islaamka ahayn. waxaan doonayay inaan hadalka ku soo xidho dunida oo aan xusuusiyo in Ameerika ay samayso waxa ay doonayso inay fasho, in aanu ummad ahaan weli awood u leenahay
inaanu samayno waxyaabo waaweyn. sidii caadada ahaan jirtay, pen waxa uu qaatay afkaartaydii kala qubnayd, waxaanu in ka yar 2 saacadood ku diyaariyey khudbad aad u heer sarraysa. waxaan ogaa in arrintan uu u danaynayo si dadka kale oo dhan ka badan, maadaama oo waayo-aragnimadii uu ka dhaxlay burburkii uu indhihiisa ku arkayey ee daarihii mataanaha ahaa ee New York ay beddeshay jidkii ay noloshiisu ku socotay, kuna soo hagtay Washington isagoo u ooman inuu wax wixii hore ka duwan keeno. Marjaan Tip.